الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. kusoo dhawaada youtube channelka Zakiya Aadan. waxaan mahad u sugnaataa Alle subxaanahu wa tacaala. marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabta ku xiran youtube channelka iyo inta daawanaysa. waa barnaamijkeeni diiniga ahaa ee fahamka soonka iyo ilaalintiisa xalqadiisa koowaad. xalqadan waxaa uga hadli doonaa dhowr ciwaan oo kooban insha allah. waxaan ugu hormari doonaa maxaa la yidhaahdaa soon ama mafhuum as-soom. waxaan u kala qaadi doonaa kelimadaas luqatan iyo istilaaxan. luqada kelimada as-soom luqa ahaan ama carabi ahaan macnaha loola jeedo, iyo as-soom diiniyan ama istilaaxiyan ama sharciyanna waxa loola jeedo. as-soom luqatan al-imsaak oo loola jeedo qofka inuu wax ka joogsado ama wax uu iska dhaafo ama wax uu ka tago. istilaaxan ama sharcan waxay noqonaysaa at-tacabudu lillaah, in ilaahay lagu caabudo, bil-imsaaki in laga tago, can ilmuftiraati waxyaabaha soonka kaa furaaya. min duluuci alfajri athaani laga soo bilaabo fajr athaaniga oo loola jeedo xilliga salaada subax ee adinka salaada subax uu dhacaayo ilaa ghuruubi shamsi, ilaa ay qoraxda ay ka dhacayso. intaas inta u dhaxayso waxaad ka ilaalin doontaa maxay yidhaahdaa ama waxaad iska ilaalin doontaa wax allaala wixii soonka kaa furaayo oo ay ka mid yihiin cunisti, oo ay ka mid yihiin cabisti. ilaahay subxaanahu wa tacaala min alkitaabi wasunna bilaad fara badan ayuu inoogu sheegay oo ka hadlaaya soonka. waxaa ka mid ah fii suurati albaqara qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa in dusheenna la saaray amana lagu waajib yeelay in aan soonno sida kuwii naga horeeyey ay lagu waajibiyey inay u soomaan. famin asunnati ama xadiidkii xadiidulqudsiga ahaa ee nebi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu ka soo wariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ahaa kullu camal ibni aadam lahu ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajziu bihi. dabcan xadiidulqudsi waxaa laga wadaa hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ama nebigiisa maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dhex maray. xadiidkaas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka soo wariyey nebiga waxaa lagu magacaabaa xadiidulqudsi. ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiidulqudsigaas wuxuu ku sheegayaa in isaga soonka uu gaar u yahay, qofka soomayna in uu isaga abaalmarintiisa siin doono. lama tilmaamin wax la yidhaahdo tiro ama xasanaad lacyimay ma jiraan. waxaan kaloo rabnaa inaan isla ogaano mataa furida soom, soonka waajibka nagu ah xillimaa lagu waajibiyey ummadda muslimiinta ee nebi maxamed. waxaa lagu waajibiyey furida soom fi sanati athaaniyati lilhijra, sanadkii labaad ee hijrada. ciwaanka kale aan u gudagalayno waxaa la yidhahdaa anwaacu soomi. soonka qofka muslimka uu soomaayo wuxuu u kala baxaa dhowr qaybood. waxaan ka sheegi doonaa qaybahaas ama aan dhihi doonaa 4 qaybood. midka koowaad as-sawm al-mafruud bisharci, soonka uu waajib yeelay ama uu sharciga oo loola jeedo soom ramadaan uu waajibna ay tahay in la soomo. soonka labaad ee qofka uu soomaayo waxaa la yidhaahdaa as-sawm al-waajib bilkafaara, soonka qofka ku waajibinaya kafaara guud ahaan waajib uu noqonayo. nooca saddexaad maxaa la yidhaahdaa as-sawm al-waajib binadar, soomka qofka ku waajib yeelaayo ama uu waajib kaga noqday in uu nadar la galay ilaahay subxaanahu wa tacaala, ballan inuu ilaahay la galay. midka afaraadna maxaa la yidhaahdaa sawm at-tatawwu, wuxuu noqonayaa saddexdan soon inta kasoo harto. wuxuu noqonayaa soonka sunnada ah ee la soomo isniinta iyo khamiista ayaa wuxuu u yahay tusaale. marka meeshaas waxaan uga bixaynaa anwaac as-soom oo aan kusoo sheegnay 4 nooc. intaas ayay nagu eg tahay xalqadii koowaad. xalqa walba waxay wadan doontaa insha allah su-aal. su-aashii xalqada
ee caawa. Sheeg qofkii ugu horeeyey ee soomay. Sheeg qofkii ugu horeeyey ee soomay. Waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalka inuu aad idin anfacay iyo barnaamijkeena diiniga ah. muuqaalkan muuqaal lamid ah intaan ku kulmi doono. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.